baştan arkadaş, baştan arkadaş. Vuruldum ben yeni, baştan arkadaş. موسيقى maxaa u joojisay haddee sanadkan qol igu soo xir qab ii quci maqashii aan heesay allah haye saaxiibkay ilaah baan kugu dharshay halkan maxaad ka soo doontay maxaad se iga baahan tahay isdeji adiga aniga waxba kaagama baahni dadka xaafadda adiga kuu murugsan oo ku raadinaya maanta idil adigaa lagu gogoobaya daawadayaal misaalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV gabadha wariidaheed waa la dilay talaajadayna ku jirtaa ilaaha u naxariisto mideeda kale wiila waxuu yidhi isaga ayaa dilay soo adiga ma dilin gabadhaas ii sheeg ilaa iyo hadda waxaad ku hadlayso ma aana fahmay wax walba oo qalbigaa gudihiis ku jira ayaad ka hadlaysaa waayahay dhib ma lahan hadda hadalkayga si fiican u dhegaysa marka adiga qof wanaagsan ayaa tahay wanaaggaaga heer wax u gaaray cadowgaaga hooyadiis tacsiida inaa oo tagto waxaan dhacaynaa adiga dembi kuma lihid dembiila hadduu jiro cid kale maaha ee waa aniga oo dembiyadan dhan geystay dembiile ayaan ahay wax walboo dhacana aniga ayaa keenay okay hadalkaaga haddii aad dhammaystay waa iska tegi kartaa weli ma dhammaysan aniga qof xun ayaan ahay laakiin qalbigayga ayaa wanaagsan run ahaantii gabadhaas ayaan aad ugu xumaaday oy wadnaha ay ka toogteen sababtoo ah gabar nadiif ayay ahayd anigana aadaan ugu xumaaday maxaa u qoslaysaa wax lagu qoslo miyaan kuu sheegay aniga may adiga aad iyo aad ayaad u wanaagsan tahay laakiin qalbigaaga waxaan dareemaa xumaan yar inay taabatay isla haddeertaan goormaa la ogaadaa mataqaanaa qofka xumaantiisa marka aad u sheegto wax isaga quseeya sida fanaankii calow shay maa la dhahaa ma aqaan shacalow bravo shacalow markuu ciyaarayo waa aragtino labada gacan kor ayuu u tagaa saasuu u boodboodaa waa xasuustaa soo maha hadalkaaga waa maqlay laakiin xagee u wadaa hadalkaaga meeshaad adiga doontid ayaan kula wadayaa aniga diyaar ayaanu ahay laakiin heshiis aan wada galnaani adiga ninkii xumaa afendi la dhahayay awood ayuu isbaday waxyaabo badan ayuu baabi'inayaa haddaan aniga adiga aan isbahaysano noloshayna caadi ayay u qurux badnaanaysaa asaga haddaan meel iska saarno mushkiladahan oo dhan way soo afjarmayaan xabiibti igaraan laqo hadda kuuma imaan karo meel ayaan u socdaa waana soo daahaya
dhulkeedii saa maaha ciyaartay waad ku ciyaartay haddaan toosinayna soo bilaabina dhulkeeda hooyo anaa furaya maya iska fadhiis anigaa soo furaaye fiir walaal waxaa samaysay dhulkeeda walaalkaa ciyaaray waa ku salaamay sidee tahay gabadhii hooy yaa yimid dhalinyaro waa idin salaamay waan kaa qaadna awoon haye maxamuud waa kuu jeedaa ina xanaaqaysid caadadeena waa ciiddoo keliya ma samayno ma cashaysan gabadheeda maya cashada dabkay saaran tahay dami dabkaas dhallinyarta bannaankay joogtaa iyagaa ku kaxaynaya cashana bannaanka kaa soo siinaya adigana waad raacaysaa haye mana fasaxaysaa adiga idriisku jufaani miyaa fasax u baahana halkan waa gurigaagii aniga gurigayga maahan ay mudana soo ma bixino maya xoogaa yar aniga socdaan aadaya kaligaa kuma diin kara aniga waa inaan ku raacaa haddaa go'aansatayna keen akhbaar ma ka haysaa haa waana dhalinyarta markaan u sheegayna si u farxeen haddaa arki lahayd waa yaabi lahayd sida horey oo kale hal meel ay nagu sugayaan guriga waxayna sugayaan inaan iswada raacno anigana amar naga sugayaan taas waan fahmee maxamuud war ma ka haysaa asagana arrimihiis xaggay marayaan maxamuud war ma ka haya aniga laakiin wax un ayuu ku mashquulsan yahay ilaa hadda anigana ma ogaan wuxuu ku mashquulsan yahay khayray ku dhammaanaysaa geerida aabbaha kuleelkeeda weli ku hayso ma haa aabbaha ciidankaygu ka mid ahaa weligiisna qoriga iskama dhigin weliba kooxda baasha ayuu ka mid ahaa ciidanka kuwa ugu firfircoonuna ka mid ahaa waa runtaa hubka sidiisa uma wanaagsano mar haddii aad qaadatana ama waxaad dilaysaa ama adigaa lagu dilayaa sababteeda ma taqaanaa hubka shaydaan ayaa u saaran sidiisa qofkii hub qaatana nolosha kuma waraagaba in la dilo iyo inuu wax dilo u dhexeeya hubka markii aad qaadatana uu cadowna kaa soo horjeedo mar walba wuxuu isku dayayaa inuu ku dilo haddii aad mar ka badbaadana mar labaad wuxuu isku dayaa inuu ku dilo qorigan iyo soo dhibaatadaas leh ayay haddana dadka weli qaataan qof mar xabad haddii aad ku dhufatana waxaad isku qasabtay in ay adigana xabad ay kugu dhacdo badankoodna saas ayay ku dhinteen laakiin aabbaha wuu ka duwanaa iyaga
maxaa yeelay wax badan ayuu noolaa adoo arkayaana la dilay soo maahan daawadayaal haa horteeda lagu toogtay waxaa lagu tarjumay studio weliba sacad oglow ayaa toogtay sidaas ayuuna aabbahay ku dhintay anigaba aabahay horteeda ayaa lagu toogtay wakhtigaas adigaba waa kaa yaraa laakiin saa'id uma yarayn aniga isla markaas aabahay la dilay aniga waxaan sameeyey ma taqaanaan waxaan u malaynayaa dadka dhan inaad dhammaysay ilaan idriis ayaa tahay ninaan loo geli karna waa tahay kadib waan cararay aniga gadaalna uma soo jeesanin waxaan u cararay si aan nolosheeda hore ugu soo cararay kadib maxaa samaysay ma cafisayna haa waan cafiyey sababtana ma taqaanaa cafisku waa shay wanaagsan inaad dadka cafisaana wanaagsan weliba waxaan cafisay ma taqaanaa anigoo hoo dhahaya adigu waxaa rabtaa nolol wanaagsan inaad ku noolaato noloshaasoo ah midaad ku qanacsan tahay weliba markii aad hesho nolosha noocaasna inaad ka dharagtaad jeceshahay soo maa laakiin waxyaabo kale ayaa jira oo markii aan weynaada aan ku fikiray markaan qofkaas cafinayna adiga waan kaa weynaa aniga weli umaada go'annimaya inaad aabbaha u argudaaday waan go'aday weliba markii aan soo laabto waxaan damcay inaan dadkaasaan raadsado aan dilo laakiin maxaa ma dilaa mid indhoolo ayuu noqday midna wuu waashay maxaan marka ka dilaa markay iga hor yimaadeenna hal mar xataa kuma fikirin inaan toogto iyaga adiga laakiin waa ii timid weliba horteeda ayaad wax alaale waxaa rabtay igu dhahay aniga waan baxay ninkaas sacad oglow ayaan u tagay wax walbana waan weydiiyey isagana si toos ayuu iiga jawaabay waxba igamuusan qarinin adiga waad saxan tahay aad iyo aad aan u saxan tahay yamaana sidoo kale wuu saxan yahay kaba soo qaad booskaas haddii aad joogi lahayd walaalkaa ma oggolaan lahayd in hortaada lagu dilo arrintaana hal qof ayaa qalday qof kalena maaha waa sacad oglow qaxwadaad ma cawaysid miyaa hadda hal mid ayaan kuu sheegayaa iskooladdaan qabso saacid wax walba uu sameeyeyna aniga ayaa u sababa aabbaha dhimashadiisana anaa ka mas-uula adigana waxaad dhahday dhiigga aabbahay dhulka ayuu ku qalalay intaba anaa ka mas-uula hadda adiga haddaa rabta aniga ii dil laakiin kaama oggolaanay awlaaddeeda inaad dhibaato u geyso
haddaan gartay meesha laga keenay daawadayaal misalkan aad dejavu waa laga keen sooma deesh qaafuu studio asal deesh qaafuu waa af faransa haye beryahan maraykanka kacsan moogtahay waxa dadka ay leeyihiin naqasaa qaadanayo faransa way ka diiday marka idinkana maraykan camalaa noqoteen wax aniga aan ku soo daalay arabtii si sahlan inaad ku qaadatiin taasi ma dhacaysa ka welwelinaan ku dhahay adeerka mid ma kuu sheegaa aniga madaxayga kumanaan dhibaato ayaa ku jirta anay teed ii haysta haddaan xabsi ka soo baxay maxaa kugu dhacday isdejibal haddaan ku dhaha se isku dayay waa fiicanahay adeerkiis xaaladeedu waa okay boqolkiiba boqol aan ku dhahay xaaladaada ka war adiga kaale adiga nyaanyuur maa tahay meeqa ruuxaa qabtaa hadda meeqaa ku aniga dhiman hal ruuxo keliyaan leh halkaas ruuxna ilaaha ay siiyey wax wanaagsan inaan ku qabtaa laygu talagalay balse adiga khataraa tahay odayga baabuurkaan saarnaa bambaad ku xirtay waxaartina iga taqalus soomaha waa gartay aan ku dhahay maxaan ka helay saxaabo nolosha ma ii diidmay wejigeyga ka leexiyo kan ta ilay wadaa dejavu ma laygeena odayga dejavu صح لغة تاج قافو I'm saying تاج قافو هاي ساعة أقول ماشان وحين كوكلي موقتها هرتا adeerka waa ogaay waxaa diiddaa dejavu inaan ku dhaco xanaaqdano xanaaqa iska ilaalinay aniga waxaan rabaa meeshaan waxaan kugu xiri markaa dhimaysid aniga indhaheyga indhaha inaan kuu saaro duqa beel way balse waxaa fiicnad xeebta inaa igeys haw fiicna xeebta leedahay halkan kuleel wayse kuleelka iga bixi maxsuusata hadda ka hor inaan ku dhahay aniga waxa iga qarinin haddii iga qarisid adaan ku qariyaa weliba lamadeeda gacanaan kugu qarqariyaa ma kudhiino misma waa hilmaanti waa idhahda balse wax walba arid waan kuu samayn jiray adiga hadalkaagaan ku socday maxaad samaysa adig mahad adiga waa samaysay mooho waa iska disay isla markiiyaa iska disay anyax camal laakiin adna waa kaa diidi hadda adoo dhimaysid inaan ku arkaan rabaa indhaha inaa kuu saaro hadda fiir xaaladaadu waxay ku sugan tahay meel fiican inaad joogto adiga ma balkuu danaani karo dayuus looma danaaniyaa la yidhi ha daawadayaal misalkan aad daawanaysaan waxaa lagu tarjumay studio asal 24 TV बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम तुम्हें देखते ही आगे हो जाती नम सनम तेरी कसम ओ